السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada magacaygu waa yumankiisa janalka aad daawanaysaana waa lacag maal kusoo dhawaada maanta cashirkeena waxaa qaadan doonaa sidee la isaga diiwaan geliyaa OneXBet adigoo Soomaaliya jooga faa'iido badan heli doona maalin kasta everyday marka horeysa soo furo application-ka OneXBet kadibna taabo meesha ay ku qoran tahay register kadibna taabo meesha ay ku qoran tahay in one click marka saddexaadna taabo meesha ku qoran tahay currency-ga Soomaaliya iska dhaaf waxba ka bedelin meesha kale ku qoran tahay currency ka bedel oo US dollar saaro meesha labaad promo code qoran tahay ku qor 200 52 som waaweyn ama yar mid aad ka dhigo markaas aas u qorto labada saddexaad tig baa saaraysa kadibna register baa taabanaysa register marka taabato koodka ku soo qormayo koob baa dhehaysa kabacdi next markii sidan ku soo baxdo waxa sameey doontaa lacag baad ku shubanaysaa sarif aad u baahan tahay kala xiriir eber leh hal eber afar eber hal mideeda kale waxa sameynaysaa profile-ka qaabka u buuxsan lahayd meesha ugu horeysa waxa gelinaysaa magacaaga meesha labaad waxa gelinaysaa magacaaga saddexaad meesha labaad waxa gelinaysaa magacaaga labaad meeshaan waxa gelinaysaa oo date birth qoran tahay dhalashadaada meesha place birth qoran tahay waxa gelinaysaa meesha aad ku dhalatay sidoo kale regionka waxa gelinaysaa Banaadir meesha city waxa gelinaysaa Muqdisho haddii passport aad leedahay meeshaan waxa gelinaysaa meesha ku dhalatay degmada meeshaan waxa gelinaysaa ID document waxa aad haysato national ama ID document ID-ska caadiga kadib waxa sameynaysaa meesha qoran tahay number waxa gelinaysaa number ID serialka meesha document number qoran tahay sidoo kale waxa gelinaysaa ama haddii waa ka tagaysaa issue date waqtiga waxa gelinaysaa oo la bixiyay passport ama ID-ga haysato issue kan waxa gelinaysaa Soomaaliya haddii ID-ga Soomaali yahay kan ugu dambeyn waa ka tagaysaa oo kaas aniga ma isticmaalno waa ku mahadsantahay isticmaalka daawashada daawad video aad u mahadsantahay fadlan subscribe sar video like sar aad u mahadsantahay